muddo ka badan 30 saacadood oo uu maqnaa adeega internetka ee gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxa uu soo laabtay galabta iyadoo oo ay u muuqanayso inuu dib u soo laabanayaan adeegyadii uu internetka fududeyn jiray. qadka isgaarsiinta ee internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa dib u soo laabtay kadib markii uu go'naa tan iyo shalay gelinkii hore sida ay xaqiijiyeen shirkadaha isgaarsiinta iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kuna sheegtay dowladdu in ay tahay cillad ka timid xagga internetka gaar ahaan cable ama fiilo soo hoos marta badda gunteeda taas oo cillad ay ku timid. dowladda Soomaaliya waxay maanta mar kale sheegtay in la xaqiijin doono lana soo gabagabayn doono baaritaankii lagu hayay ogaanshaha waxa cilada sababta u ahayd. hase yeeshee hay'ad la yiraahdo NetBlock oo ka shaqeysa arrimaha madax-bannaanida internetka waxa ay sheegtay in aanay jirin sabab muujin karta fiilab marta badda hoosteeda oo cillad internet ku timid, hase yeeshee ay u aragto in arrimo siyaasadeed internetkii koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya loo damiyay. qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa internet la'aan ahaa tan iyo galabkii Sabtida, inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayayna intaasi saameysay. shirkadaha isgaarsiinta dalka ayaa waxa la sheegayaa in qaybtood xarumahooda ay internet iyaga u gaar ah ku isticmaalayeen, kuwa kale waxa la sheegay in adeegyo aan xawaarihiisu badnayn oo internet ah ay siinayeen xarumo mucayan ah. kadib markii dabaylo xoogan ay dhaceen kuna dhufteen badweynta Hindiya sida dowladdu ay sheegtay, waxay saameysay mid ka mid ah xargaha internetka taas oo sababtay in ay cillad ku timaado. hase yeeshee muddo ka yar 48 saac ayaa lagu xalliyay. sidoo kale adeegyada internetka ee aan ahayn kuwa ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta waxaa iyaguna la sheegay inay ka maqnaayeen Muqdisho iyo gobollo kale oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. ha yeeshee hay'adda NetBlock waxa ay sheegtay in saameynta ugu weyn ee internet la'aanta ay gaartay magaalada Muqdisho. internetka la jaray ayaa weli sii socda. internetka la jaray ayay hay'addu sheegtay in uu weli sii socon doono iyada oo xadidaysa tabinta dhacdooyinka wararka la xiriira khallaasaha siyaasadeed ama xaaladaha siyaasadeed ee waddanka ka jira, taas oo la doonayo in aanu gaarin meelaha loogu talagalay inay gaaraan. wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya Cabdi Canshuur ayaa sheegay in cillad farsamo ay ku dhacday xarig internet ah oo ah fiber optic mara badda hoosteeda. waxaase dad badan oo reer Muqdisho ah ay sheegeen in culays badan ay kala kulmeen muddadii uu internetka hawada ka maqnaa. haddaba saameyn dhaqaale iyo mid bulsho ayaa saacadihii uu internetka maqnaa waxa uu ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho ku nool. haddaba wariyeena Axmed Bootaan oo la kulmay qaar ka mid ah noocyada dadkaasi gaar ahaan ganacsatada ardayda waxbarata iyo sidoo kale qaybaha kale ee bulshada ayaa warbixintan nooga diyaariyay. lama badan ayay dadka u adeegsadaan internetka oo adeegeeda laga helo, waxaana ka mid ah siyaasadda, waxbarashada iyo sidoo kale haasaawida oo kulmisa dad meelo kala fog kala jooga inuu jaceylkooda ku socon jiray. go'ida internetka oo dowladda ay ku sheegtay fiber optical oo gudbisa internetka badda gudihiisana marta inay sabab u tahay in la waayo adeega internetka. dhalinyaro badan oo casharo ku qaata online ee baxshaan jaamacadaha ama xarumaha waxbarasho gudaha iyo dibadda ku kala yaala ayaa waxay dareemayaan inuu istaagay waxbarashadooda. sidoo kale ganacsatada ayaa culays dhaqaale dareemaya. mid ka mid ah ganacsatada leh kambani iibiya elektaroonika oo lagu magacaabo Ciise ayaa waxa uu sheegay inay saameyn dhaqaale ay ku keentay internetka maqnaanshihiisa. maasha Allah internetku si la socoto maanta ganacsi kasta Soomaaliya ka jira waxa basic ugu muhiimsan oo ku xiran yahay ka mid tahay waa aaladda internetka. dabcan anaga waxa ka mid nahay dadka iibiya qalabka elektaroonikiska. dabcan waxyaabaha ay iibina waxa ka mid ah mobilada oo markasta ka mid ah waxa u baahan tahay mid kasta markaa gadid inaad u baahatid dadkiina u baragaraamida ay tijaabiyaan ay u baahan internetka inuu shaqeynayo in kale inay ogaadaan. dabcan dad fara badan oo ka mid ah sida maanta waxyaabo badan laga iibsado waxay leeyihiin
telefonka inuu shaqeynaa in kale waxaan qalabkan maxaa kalsooni badan ku qabaynaa inta kale waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha kale oo dhibaatada kale oo internet la'aanta ay keentay dabcan waxaa jira anaga waxaan ku xirannahay ganacsiyo kala duwan oo meelo kala duwan wax ka dalban dabcan dalabkii shaygii marka inta adiga aad dalban ka hor waxaa lagu soo gudbinaa shaygii sawirkiisa oo kale lagu soo diro marka baahidaas oo dhan meeshii ka baxday shaygii dabcan mararka qaar qaladaad inuu dhaco wax imaanayo oo shaygii adiga shay aad u baahnayn dabcan dalabkiisa uu ku yimaado midda kale anaga customer badan aan leenahay wax naga soo dalbada dabcan oo shay sawir inta noo soo diradhaa qalabka alaabtaan aan u baahannahay anagana kadib si online aan wax uga iibi jirno dirta baahidaas oo dhan maanta dhib badan ka yimid way maranta booskaas u banaayay marka waxa rabaa inaan ku weydiiyo yes dad fara badan customer badan jiray aad fara badan oo naga xiran dhanka online-ka kuwaas oo naga soo dalbada si maalin la ah qalabyo cusub iyo waxyaabaha cusub aan soo kordhinay maanta wala la socda anagana si page waxa jira oo leeyahay company uu leeyahay kuwaas oo lagu soo madhigay company wax kasta oo new ah marka waxay soo codsadaan customer-keenu maalin kasta waxa new-ga inaan sample u soo galina kadibna waxyaabaha neediska ay u baahiin ay dad badan markaas aan siin aad iyo aad dhaqaale maanta anigu aan dareemaynaa isbedel aad iyo aad sidoo kale waxaa jira dhalinyaro isku leh heesaawi jirta internetka ciise oo gabar kula sheekaysan jiray internetka oo joogtay Nairobi ayaa waxa uu ii sheegay inuu war ka haynin saaxiibtiisa marka ka dhalinyaro ahaan maxaa ku qaban jirtay internetka adiga niyo internetka waxaan ku qaban jiray waxyaalo badan sida shukaansiga bulsho badan asxaab badan oo friends maxay oo maaragtay oo wada sheekaysan jirta aan mar kasta hameen iyo maalin waqti kasta online iska jiray oo aan ku wada sheekaysan jirnay haba igu daraatay asxaabta oo dhan dib waa isaga soo laaba lahayn waxa igu taran kuwi aan maaragtay sida sayidka aan u wada soconay oo dhalinyarada aan sheekaysan jirnay isla qaaska midda kale gabdhaha saawihi waxa waaye wax badan aan tabiya xalay iyo waxa ay ku sugan tahay ilaa shalay ilaa caawar kama hayo marka gabdhaha qaar dibadda jira qaar muqdisho jira wada kale rag waa iska maaragtay waa iska damac badan yahay ceen badan bay ku kala xiran tahay midda gaarka oo la socday waxay joogtaa Nairobi ha marka hada wax ay ku sugan tahay maqluub kuma gaaro meel shubta ma garanayo safar u bixin ma karo marka ma sha Allah ni aad baan tabiya halkaas waxaan codsanayaa in internetka noo soo marin internetka waxay ku qaban jirtay waa in xoogaha dalka iyo dibadda ay ka daalacan jirtay website-ka Risaala sida ay ugu warantay wax idaacadna ma dhageysato kuna magaalada Muqdisho wallahi waxaan ka xunnahay macnaha internetka oo aan heli weyno sababtoo baahiyaal badan oo naga xaqabtir jiray sida inaan ka miiciisi waalidiintan cambal ama ka miiciisi aan wax walba aan ka ogaano xogta ka dhacaysa magaalada Muqdisho aad iyo aad aan ugu xumahay inaan horta aan waayno sababtoo alaantiisa wax walba ma shaqeynayaan ilaa wax walba aan ka ogaan jirnay waxaan ka sii xumahay ilaa waxaan ka sii xumahay in macnaha aan wax walba aan arki weyno oo xogta macnaha magaalada Muqdisho ka dhacaysa guud ahaan dalkeena Soomaaliya waxaan ka dhageysan jirnay idaacadda Risaala xogta soo dhigto hadda wax ma dhaan wax dhogol wax ma dhaan waxaan codsanaynaa in macnaha internetka aan helno ha كم رجع سجل إذا حد مقدر يسجلني بيج كان عن فريجر عن داون جيرج ardayda online wax ku barta ayaa waxbarashada ka istaagtay inta uu xirnaa internetka kana mid ah ardayda jaamacadaha Muqdisho wax ka barta gaar ahaan wax ku barta habka internetka online ee loo yaqaan distance learning waxa internetka maqnaashiisa ugu yeeshay saameyn weyn maadaama aniga casharada waxa dhan macna imtixaanaad kulli online aan ku qaadanayni marka saameyn weyn oo ugu yeeshay internetka maqnaashiisa casharada qaadi jir waa badin aniga waxa barta kulliyada Faculty of Economic and Management Science Department of Economic Custom Department of Economic casharada qaadi jir waa badin waxa kamid maadada managerial economic maadada managerial accounting maadada Islamic insurance public finance maadada English 4 sided ilaa sided maadada qaadi jirna jaamacadda Hormuz University qayb ha inuu qof kasta inuu internet haysto oo distance learning wax kale ma abado guriga joogto casharada qaadan internet loo lama oga xilliga la soo deyn doono internetka inkastoo dawladda ay sheegtay in la soo gabagabeyn doono maanta baaritaan lagu ogaan doono cilada ku timid internetka warbixintaasi waxaan idin diyaarinay maanta ka hor inta aanu dib u soo laaban adeega internetka iyada oo uu hadda si caadi ah u shaqeynayo mana jirtay ilaa hadda dawladda
iyo dhinacyada bixiya adeega internetka oo si faahfaahsan uga hadlay dib u soo laabashada adeega internetka iyo sababihii markii horeba uu u maqnaa adeegan inagoo isku dayi doona inaan la hadalno dhinacyada ay qusayso si aan xog badan uga ogaano. ridistii xukuumaddii ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxay dad badan u arkaan in uu yahay mid lagu riixanayo muddo kororsi taas oo uu damacsan yahay madaxweynaha Soomaaliya sida siyaasiyiinta qaar ay u arkaan. haddaba ma sahli kartaa in xukuumaddii ra-iisul wasaare Kheyre oo meesha bannaysay ay u fududaato ka dhabaynta damaca la xiriira in hay-adaha dastuuriga ah ee dalka qaarkood ay muddo kororsi samaystaan? warbixintan waxaa inoo diyaariyey waryaheena Cabdiqaadir Maxamed. dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay arrimo la xiriira muddo kororsi uu damacsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana siyaasiyiinta mucaaradka, madaxda dowlad goboleed dalka ka jira iyo saamileeda siyaasadeed ee dalka ay ku baaqayeen inay doorashada waqtigeeda ku dhacdo. haddana waxaa muuqday qorshayaal keeni kara inaysan waqtigeeda ku dhici karin doorashada maadaama dowladda hadda jirta waqti u harayna uu yahay mid aad u yar balse ku adkeysanaysa in la qabanayo doorasho qof iyo cod ah taas oo aan suurtagal ahayn. in ka badan sanad iyo ma jirin wax kulan ah oo dhex maray madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada marka laga rabo shirkii Dhuusamareeb ee dhawaan ka qabsoomay si uga arrinsadaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. taas bedelkeeda waxaa hareeyay khilaaf xalkiisa waqti badan aan lagu bixinin, waxaana taasi ay keentay in madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilada siyaasi ee dalka ee markaasi shaki geliyaan doorasho ku dhacda waqtiga loogu talagalay. kulankii ugu horeeyay ee madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay ku yeesheen sanadkan magaalada Dhuusamareeb waxa uu ahaa mid rajo wanaagsan laga sugayay in la dhaqan geliyo qodobadii ka soo baxay ee ugu weynee doorashada waqtigeeda ku dhacda, balse waxaa mar qura isbedelay xaalka siyaasi ee dalka kadib markii xildhibaanada golaha shacabka ee si degdeg ah kalsoonida kala laabteen xukuumaddii Xasan Cali Kheyre. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo la aaminsan yahay inuu ka baxay sabab la xiriira inuu ka soo horjeeday muddo kororsi ay sameeyso ama uu sameeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in laga baxay heshiiskii magaalada Dhuusamareeb, taas bedelkeedina filla Soomaaliya ay ku fikirayso qorshe ah muddo kororsi oo uu sheegay in markii hore uu ka digay si dalka oo aysan uga dhicin qalalaasa siyaasadeed. waxaan isku raacnay in la isku soo laabto 15 Agoosto si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka. inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyay, haddana waxaa muuqata in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka. fikirkaas waan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo, ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qoro isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino. hogaamiyaha xisbiga wadajir siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa aaminsan in madaxweyne Farmaajo uu qaaday talaabo kasta oo u sahli karta inuu ku helo muddo kororsi, isaga oo tusaale u soo qaatay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay. waxa dhan waxaas loo sameynayo 2 sano oo la soo dhaafan ka digaynay waa muddo kororsi. madaxweynaha wuxuu wax kasta u bixinayaa oo saaxiibkiisi dadka ugu dhawaa oo shalay sida aragtay oo bahdalaada ku jirto oo xilka uga qaaday oo soo qofna ugu turaynin waa inuu xilka sii joogo, wada kasta uu ku joogi karo uu ku sii joogo. sharci darro xoog nimanka filla Soomaaliya ka taliya ay taliskana isugu daa oo isku dhafan inay cid ay u turayaan ama cid ay u aabiyeelayaan ama cid kastana ay doonayaan maalintaas inay ku moodaan siyaasadaas maalinlaha ah ee maalin joogan ay kula macaamilaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in ra-iisul wasaare xilka laga qaado aysan ahayn mid ku cusub dalka, ha yeeshee muhiim ee tahay in dalka meesha uu ku socdo laga soo celiyo isla markaana niyad wanaagii dalka ka jiray oo ay haysteen shacabka Soomaaliyeed ee la jibay la soo celiyay, isagoo fariin u diray madaxda dowlad goboleedka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxaan ka xumahay siyaasiyiinta qaybtood inay u qaateen ra-iisul wasaare tagay iyo ra-iisul wasaare la keenay oo xusul duub loogu jiro ciddii noqon lahayd.
arrintu ma aha ra'iisul wasaare baxay iyo ra'iisul wasaare yimaado waa ay dhici jirtay haddii hore u dhici lahayd marxalad aan xasaasi ahayn dhibna ma keenteen laakiin marxaladan hadda waxa ku soo beegmay waa marxalad ka duwan aragtidaas marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo mas'uuliyiinta dowladaba wixii dhacay waa dhaceen caanadaatay dabadaa la qabtaa khaladka ciddii gashana inay qaadato caqligu inuu soo noqdo dalka meesha ku socdo in tala intii hore ka badan la geliyo waan ka xumahay niyaddii wanaagsanayd ee dowladaha iyo dowladda puntland ba ay haysay in dhabarjabin lagu sameeyo waxaan madaxweynaha dowladda federaalka ah baaq ugu dirayaa inta dhiman inuu dalka uu u naxo oo u turo oo uusan gaarsiin meel aan hadhow laga soo qaban karin dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan in dalkii la badbaadiyo marka loo eego dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ee dalka ka dhacay oo ay ka mid tahay xilka qaadistii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo ku adkeysiga madaxweyne Farmaajo ah in la qabanayo doorasho qof ay cod ah ma sahli karta madaxweyne Farmaajo inuu helo muddo kororsi waxa su'aashaas weydiinay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas horta muddo kororsi dib yeelaysaa ma jirto oo maralmayo dowladdu inay yeelayaan arrintaas asan go'aan ka gaareen يعني تامرين السياسية سؤال هي أكبر يا هم مرين مريو شعب أكبر مريو ليش عالم قوتنا كان تاجرته أو برشوك كيسانا ما أكبر يسوع مركا وفيوتر إكسس واحد يرادو ودعم الدارس موياني يدك اللي وريريو يبتين كان إكسس واحد يرادو أو وقت تكنيكال أو بروسس كله قدام ما يستروا وادعك السابرة لكن في كفكر يا هي سنة السيتشو ده كراسة أي كسي فديان مرين مريو إنه يجيبوا تو فواحد معها واحد أطلع كان لوضع برتين معها يدو كهنيسة إنه هذا كتر إذا أنا وكل marka laga soo tago hadallada ka soo baxay madaxda dowlad goboleedyada xisbiyada siyaasadeed ee dalka ee ku aadan inay ka soo horjeedaan muddo kororsi su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay radistii xukuumadii Xasan Cali Kheyre muddo kororsi ma u sahli kartaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtiga xidintiisa ay ugu hartay 6 bilood iyo 12 cisho ورينا عبد القادر محمد وربحنتيسا ayaa ugu dambeysay warkeenii habeenoodii ka gimaanayay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho cid warkeenan uu sheego waxay mar kale dib ugu heli karaan radiorisala.com